ganacsatada iyo dhalinyarada iyo inta kale aan sheeginba waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacda salaam waxaan aad iyo aad horta inaga mahad celinayaa sida qadarinta leh, qiimeynta leh, tixgelinta leh ee runtii aad waqtigiina qaaliga noogu soo horteen, iyadoo ay tahay markii ugu horeysay ee shirkadda Barra Construction ay timaado gobolka Togdheer magaaladiisa Burco, iyadoo aydan waxba naga arag ayaad haddana sidaa qiimaha la noo samayseen. waa mid aanan ilaawi doonin oo aanu ka dhawayn doono annaguna hadafkayaga iyo himilayada aanu ka leenahay gobolka Togdheer. intaa haddii aan kaga gudbo, haddii aan ka hadlo taariikhda shirkadda Barra Construction, waxaa la aasaasay 1982 waxaana aasaasay Aabbe Xuseen Barre oo ahaa oday reer Somaliland oo sanadadaa ka hirgeliyay shirkadda magaalada Hargeysa, iyadoo intaas oo dhan ilaa intii waddanka laga qaxay shaqaynaysay 1991kiina shaqadeedii dib ugu soo celisay waddanka si ay dib u dhis ugu samayso waddanka, iyadoo dadku aanay haysan wax dhaqaale ah isla markaana marxalado kala duwan la soo martay bulshada reer Somaliland. waa mararka ay iibin jirtay shirkaddu guryo aan dhammaystirnayn oo jiingad lahayn si ay qofka dhaqaalaha uu haysto ay wax uga iibiso u kabto bulshada, balse aanay hadafkeedu ahayn inay lacag raadiso kaliya. maanta alxamdulillaah waqti fiican ayaan maraynaa. waxaa shirkaddii odayga loo naxariistay markii uu dhintay hadalkii ka sii qaaday inamadiisii ilmo Xuseen Barre. waxaan markaa qabanay shaqooyin aad u fara badan, dadaalkiina waan laba jibaarnay, kabaasitiga shaqadayaduna halkuu marayo waad la socotaan. waxaanu dhisnaa sanadkii 300 oo guri, kuwaasi oo aan qaybta u badan annagu iska leenahay shirkad ahaan, kadibna aanu iibino si aanu bulshada ugu fududayno inay guri diyaar oo dhammaystiran ka heli karaan shirkadda. sidoo kale waxaanu garanti ka siinaa guriga aanu qofka ka iibino muddo 2 sano. runtii waa dareemi kartaan qof guri uu dhisay 2 sano gudaheed garanti siiya ama waaranti qofka siiyey. kalsoonida intaa leeg ayaanu leenahay, oo haddii laambadi jabto ama tuunbay istaagto annaga ayaa leh, qofka gurigaan ka iibinay wax dhaqaala ma bixinayo. sidoo kale waxaanu macaamiisheeda u samaynay in aanu haddii uu guri ka iibino oo berri ka maalin dhaqaalihiisu kordho oo uu damco inuu gurigii mid ka weyn dego, annagaa ka qaadanayna gurigaan ka iibinay. shirkad ahaan annagaa ka qaadanayna, isla markaana guriga uu doonayo siinayna, iyadoo loo eegayo qiimaha labada guri ay marayaan wixii dheer uu bixin doono. taasina waa kalsooni labaad oo annagu aan leenahay, oo wixii qofka aan dhisnay ay annaga aanu dib u qaadanayno oo aan la xijeclo ka leenahay, aanan qofka iskaga eriyeyn oo u dhis oo ka tagaan lahayn. waxyaabaha lagu yaqaano shirkadda Barra Construction waxaa ka mid ah in dadka aan u shaqaynaa u badan yihiin dad aan hore ugu shaqaynay, dad aan hore shaqo ugu qabanay ayaanu mar walbana u shaqaynaa oo shaqooyin dambe oo badan noo keena. taasina waxay ku caddaynaysaa in shaqadii aan hore u qabanay aanu si wanaagsan u qabanay. walaalayaal, ammaan fara badan halkan inaan ka soo jeediyo uguma talagelin. waxaan nahayba waynu isbaran doonaa. anigoo ah injineerkii guud ee shirkadda, waxaan ballan qaadayaa in aan si hagar la'aana gobolkan Togdheer uga howlgeli doono, shaqo qiimo lana uga qaban doono. way adag tahay in gobollada oo dhan la wada tago oo laga furo qaybo, sababtoo ah shaqada aan hayna ee hadda Hargeysa noo taala oo 300-400 oo guri ah, in aad hawsha intaa leeg gudato oo sida ay ahayd u qabataa wax sahlan maaha. bari hore ayaan gobollada oo dhan wada mari lahayn haddii aanu meel walba magac iyo boodhan ka doonayno, laakiin waxaan doonaynay inaanu waajibaadka Hargeysa yaalla aan wada fulino oo dadka wada qancino. bini'aadankana waa taqaanaa, marka guri loo dhisayo ilaa inta uu dhammaanayo wuu kula shaqaynaya, wuu kula hadlayaa oo waxbuu ka cabanaya, in la qanciyaana ma sahlan. marka walaalayaal, waxaan sidoo kale ku guulaysanay inaanu dalka UK ka furno xafiis Barra Construction oo habeen hore ay xafladiisi ka dhacday magaalada London. taasina ujeedadeedu ahayd in qurba joogteena xaggaa joogta aanu halkoodii ugu geyno shirkadda Barra adeegyadeeda, intii ay tigir soo goosan lahaayeen, ay shaqooyinkooda fasax ka qaadan lahaayeen,
si aan time-kaa dhan iyo kooska ugu seef garayno ayaan UK ka furnay xafiis uu leeyahay Barra Construction oo ay ka iibsan karaan guryaha. walaalayaal Hargeysa waxaanu ka furnay mashaariic fara badan. mashaariicda danta guudana priority-ga ayaanu saarnaa oo ay noo calaamatan yihiin. waxaanu sameynay school technical oo aan weli shirkad samaysan jirin, kaasi oo lagu talagalay in ay ka soo baxaan shaqaale xirfad leh. wastaadka waxay noo dhisayaa iyo barnaamijka iyo electric-ga dadkii hore wax u bartay ayaa wax noo qabtay. taasina casrigan maanta aan la jaan qaadayno annagoo ah dad injineera oo wax wada bartay oo wada khibrad leh. casrigan aan baranay ayaan doonaynaa inuu noola jaan qaada ninka ustaadka ama ninka barnaamijka ah. uma baahnin nin weyn oo waqti badan soo shaqeeyay. way fiicneedo waqti fiican bay soo shaqeeyeen oo wayna soo gaarsiiyeen, wayna ku mahadsan yihiin. laakiin waqti xaadirka waxaan u baahanay jiil cusub oo technical-kan cusub ee dunida ka jira noola jaan qaadi kara. iskuulkaasi waxaa ka soo bixi doona dhammaan qaybaha kala duwan sida wastaadada, electric-ga, barnaamijka iyo dhammaan qaybaha kale dhismaha dhan oo iskuulka lagu baran doona. waxaanu keenay macallimiin ajnabi ah oo bari doona dadka technical-ka aan u baahanahay. annagoo kaliyana nooma shaqaynayaan, qofku wuxuu shaqaynayaa bulshada reer Soomaaliland meel kasta joogto. taasina waa qodob muhiim ah oo runtii bulshada ay u baahnayd. walaalayaal aad baan ugu faraxsanahay runtii inaanu naga raagnana waan ka xunahay mar hore ahayd inaan nimaano. way noo suurtagali weyday capacity-ga shaqadaan hayna awgeed. Berbera ayaan dhowr bilood ka hor soo gaadhnay, iyadana mashaariic ilaa dhowr iyo hadda ay ka socdaan. Burcana maanta ayuu Ilaahay noo qadaray inaan nimaano. waxaan insha Allah rajaynayaa in aad nala shaqayn doontaan oo hadafka aan leenahay aynu wada gaari doono. kulligeen hal hadaf aynu wada leenahay, waana dib u dhiska dalkeena iyo bulshadeena in si daacad ah loogu adeego oo wax qurux badan oo qiimo leh loogu sameeyo. waqtiga oo kooban darteed ku sii dheereynayo intaasaan ku soo koobaya hadalkayga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.